kismaayo iyo qofka joogo oo 13 sano saaran wuxuu raadinaa dimuqraadiyad waa meesha kaliya ama magaalada kaliya ee qof senator ee xasaanad leh uu ku xiran yahay marka ninkaas dictatorka ah meesha joogo Axmed Madoobe la yiraahdo aniga lama yaabin ee kuwa u doonta cadaaladii dimuqraadiyaddan la yaabana meel suuq geyntaada waxa adiga aad suuq geynayso saasa ku fahmi kartiin kulli business u badantiin suuq geyntaada marka meel aad wax ku suuq geysan kartaa la tagaa macna laakiin meel dimuqraadiyadda lagu dilo dictatornimada lagu nooleeyo maaragtay lagu xirto dadka madaxda ah qof uu aysan hadli karin qof waliba la xirto qof ju u dhigi karta aysan jirin laba qof oo san la tirtami karin anaga waxaan ku haystaa ana xildhibaan ah markaan soo qaadanay kursiga farsamaan ku soo qaato wada ogtiin Soomaa geelkeedii hal qof ay la tirtamay markaas sidoo kale waa kursigiisa kii xildhibaannimada waa hal qof la tirtamay 89 cod asaa hela lagu leeyahay hal waa labana kii la socdaa hela lagu leeyahay ninkaas wuxuu leeyahay dimuqraadiyad iyo waxa la rabaa doorasho waqtigeeda lagu qabto annagana waxaan leenahay marka waxaan rabnaa doorasho qof iyo codaan rabnaa asxaabta rabnaa in la keeno qof walba inay meesha tagto guriyihii la gargaraaco codkaada si la dhaho santuuqaas markii cod lagu ridayo waa xanuun badan yahay hadaa rabta adoo og inaad soo bixisto waa intaas soo wax khaldamaana isleed kan ku camira xitaa hadoo tanazuli waayo kurba intaas kuugu filan horta halkaas waxaan gaarsiinay in muqdisho dhan inta la isugu soo baxo la codayaan gaarsiinay intii wala diiday waxa la dhawayaa marabnay xildhibaan inayna doortaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed waxaan rabnaa marka inay garwadeen garta noo qaado macna haddii la yiraahdo xildhibaan doorasho dadbana la aadaana farsamadii waa naqaanaa waa annagaan ku nimid waana noo sii dhimantaa waliba cilmi kale aan kororsanay marka hore waa cusbeen hadda cilmi badan aan naqaanaa haddii la yiraahdo marka doorasho qof iyo cod la aadaana deegaanadan tageynaa waa baryeena waa codsaneena waliba aan deegaanadeeda qaar waxay haystaan qawaarij haddii la yiraahdo kursigaaga ku xiran ka soo madax banay waa tagaa furuntan tagaa inaan soo helaa jirto macna waxaan rabaa marka halkaas inaan wax wada gaarsiino waana ka xumahay to be honest ayadoo oo maaragtay ee tahay xaflad maaragtay certificate lagu soo siiyay shirkadeeni 20 sano shaqeynaysay inaan arintaas galana aadan ugu xumaa waa idinka raali gelinaa laakiin mar hadaa mikrofon qabata asaa ku hogaaminaya macna go'aan mali ugu yaraan waa isdaba qabanaa xarajeyna marka shirkadana inay hore u sii socoto hal abuurada ay hadda keentay wadankan ee 20 sano soo socday ee maaragtay ku soo hogaaminaysana kuwa maaragtay ka sii ilbaxsanna inay keenaan rajeyna hadii Ilaahay raali ka noqdo annaguna markasta waxaan u nahay garab iyo gaashaan sidoo kalena waa sida aan sheegay adduunka dagaalka hadda tiknoolajiyad uu gudbay hadii ahaan lahayd maaragtay drones la sameeyo kuwa wax basaaso la sameeyo maaragtay hubki si kasto cabiraadii tiknoolajiyo wadanka aaday ama adduunkiiba tiknoolajiya aada marka tiknoolajiyadaasna waxaan rabnaa inaan ka faa'iideysano haday ustaad Sabriye abtigay xilligii Xasan Sheekh hore hal mar dhagteeda ku dhacday laakiin data la qaato sheegay daatada ma jirin ninka ajnabi ah waana noo gooyay xilligaas saas ah laakiin daatada lama qaadan intaas saxa marka ajnabina waa ka maarmi doonaa hadii Ilaahay yiraahdo waana ka maaranay hadda ciidanka xooga ayaga shaqeeyo niman dhalinyaro ah la qaataa waxaana laga qaataa jaamacadaha waxaan sameeynaa jaamacadaha sida kaalmaha ay u kala galeen ICT-da inaan maaragta u soo qaadno imtixaan ay maraan tababar ay galaan fursadahaas ay ka faa'iideystaan kadibna aqoon kororsi loo diro halkaas shahaadadooda lagu qiimeeyo darajadooda halkaas aan mareynaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inaan ka sii sare marinana
ورجينا هدي إلى هذا وما سنتين لما